sanadaha labaad ee lagu qabtay dalka Kenya caasimadda Nairobi maanta oo ay taariikhda tahay 26 bisha January 2025 ayaa waxa soo idlaaday shirkii labaad ee sanadlaha ahaa madasha midnimada Garre kaasoo lagu qabtay caasimadda dalka Kenya Nairobi inta u dhaxaysa 25 iyo 26 bisha January shirkani ayaa waxa isugu yimid wufuud tiro fara badan oo ka kala timid dalal kala duwan qaasatan dalalka ay degaan caylada Garre Ethiopia Kenya Chad iyo Soomaaliya waxa kale ka soo qayb galay qurbajoog u dhalatay beesha ka qaybgalayaasha shirkani waxa ay ka koobnaayeen dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada beesha Garre sida siyaasiyiin culimo aqoon-yahan dhaqan ganacsato qurbajoog haween dhalinyaro gorfayn dheer kadib inta uu shirka socday waxa lagu gorfeeyay arrimo kala duwan ee la xiriira isdhexgalka bulshada mideynta beesha kor u qaadida iskaashiga beesha ee shirka beesha Garre shirkaasi kasoo qaybgalayaasha waxa uu ku dhiirigeliyay in ay kobciyaan sida dhaqanka beesha ilaalinta afka mahow sidoo kalena in ay isweydaarsadaan aqoonta iyo khibradaha gorfayn dheer kadib shirku waxa uu soo saaray qodobadan hoos ku xusan kow shirku waxa uu mahad u celiyay walaalaha beesha Garre ee Kenya kuwaas oo martigeliyay shirka sanadka kan 2025 sidoo kalena shirka waxa uu bogaadiyay doorka weyn ee madasha midnimada Garre yaani shirka kani uu qabsoomay labo ka shaqaynta midnimada beesha Garre iyadoo loo marayo isdhexgalka bulshada afarta wadan ay beesha ku nooshahay saddex horumarinta arrimaha bulshada beesha iyo kuwa dhaqan dhaqaale taasoo ku suuragelin karta yaani hanitaanka iskaashiga togan ee dhexmara dhammaan qaybaha kala duwan ee beesha afar shirka ayaa isku raacay ahmiyadda qoridda afka Garre ee afmahaw sidoo kalena shirka ayaa bogaadiyay dadaalka ku aadan ilaalinta dhaqanka suuban ee beesha leedahay shan xoojinta shirka beesha Garre kaasoo noqon doona sanadle lagu qaban doono qaybaha kamid ah ama wadamada qayb kamid ah ee reer Garre u dego number 6 shirka waxa uu adkeynayaa mabaadi'da wada noolaanshaha iyo ilaalinta daris wanaag 7 shirka waxa uu ku boorinayaa kor u qaadista awoodda dhalinyarada iyo haweenka shirka waxa uu yaani bogaadinayaa in la sameeyo gole ka kooban afarta wadan oo ay yaani golahaasi oo ah gole farsamo kaasoo isku dabaridi doona hawlaha isku xirka beesha waa mahadsantiin